Assalaamu calaykum Ramadaan mubaarak walaalkayga iyo walaashayda muhiimad ma ku leedahay ducada ma jeceshahay inaad ducaysatid ma jeceshahay markaste inaad ducaysatid ma ku fakartay inaad ducaysatid wax kastoo aad jeceshahay ama aad tamanaysid ama aad oo qalbigaaga iyo naftaada ay rajayso ma ku fakartay inaad ku ducaysatid waa walaalkay iyo walaashayda dunida meel kastoo aad ka joogtiin ducadu ma ogtihiin inay tahay qaali ducadu ma ogtihiin inay waxyaabo badan bedesho ducadu ma ogtihiin shar iyo khayr inay kala socdo wixii shar ku aan ay ku tusiso wixii khayr ku aan ay ku tusiso ducada miyaad u ducaysa naftaada miyaad u ducaysa walaalahaaga miyaad u ducaysa wadankaaga waa su'aal oo muhiim ah oo na wada anfacayso walaalayaal ducada waxaa laga dhaxlaa barwaaqo iyo bashbash iyo rayrayn wadanka wuxuu ku hagaagi karaa inaad ducaysano annagu waxaan ku hagaagi karnaa inaad ducaysano markasta inaan noqono dad qaluubtooda qashuucdo ilaahay dartiisa u ooyo ilaahay baryo wax walbay u baahanyiin wax walboo ka maqan yihiin ilaahay weydiisano allahu akbar ma isku daynati midaas badankeena maya ma isku dayin wax waliba waxaan rabnaa aan u baahannahay in la isku soo kaayo kor saaro oo naloo soo diyaariyo laakiin maya ma soconayso waxaa la yidhi waxaan loo dhibtoon lama dheefsado waa inaan muujinaa qashuuc waa inaan bixinaa juhdi waa inaan in badan allehana barinaa ilaahay subxaana watacaalaha markaas wax waliba u baahannahay iyo riyooyinkeenna wuu noo saqirayaa laakiin waxaa ka horeyso riyo kasta aad rabtid inaad gaartid waxaa ka horeysa inaad ducaysatid waad og tahay waad garanaysaa ducada inay irdaha kuu furayso wax walba u baahantay inay helaysid laakiin waa ka gaabsatay maxay ku dhacday midaas walaalayaal markaste oo wax tabanayno ama markastoo dhib iyo xaalado kastana na soo wajahaan waa in inta laba rakaca dukanaa aan ilaahay barinaa korbo kastoo ku hayso ilaah wuu kaa feedaya marka intaa la soo weysatay ilaahay dartiisa laba rakaca u dukatid arrinkaaga u sheegatid markuu ilaahay kuu nimceeyey oo wax waliba u baahanta la iskaa kor saaray miyaad soo xasuusatay rabbiga ku siiyey farxaddaa haysatay ma soo xasuusatay rabbiga ku siiyey badankeena maya markaan helno intaan farxanaba hore u soconaynaa waa biscajabinaynaaba dunida waxaa u malaysaaba in anagu aan horseed u nahay oo niri soo soco duniya annagaa ku horkacayna camal marka no ma aha sidaa mooda arrinku waxaa waaye ilaahay wuu awoodaa inuu ku siiyo wuu awoodaa inuu kaa qaado laakiin adiga maxaa laga rabaa markay xaalad kula soo darsato adag oo murugo leh ama dhibaato leh waa inaan ilaahay subxaana watacaala u qashuucinaa ilaahay barinaa ilaahay u sheeganaa ilaahay asaguna arka anagana ma arkayno laakiin inaan arkayno camal inaan ula sheekaysano oo arrinkeena u sheegano markuu noo nimceeyano oo wax waliba u baahannahay ay horteena yaaliina waa inaan farxad darteeda ilaahay u qashuucinaa oo nidhaahnaa ilaahow nicmadaana siisa waan kugu xamdiye ilaahow wax kastoo tabanaya siisa waan kugu xamdiye waa inaan nidhaahnaa adduuniya aakhirana khayr waa inaan ku ducaysanaa adduunyo waxaa jirto mararka qaar ay wax shar ku ah aad rabtid inaad heshid iyo wax khayr ku ah aad rabtid inaad ka fogaatid marka wax waliba ilaahay ayaa ku cilmi leh laakiin anaga maxaa nala ka rabaa ilaahow hadday khayr ii tahay waxaas ayaan doonayaa ilaahow adduun iyo aakhiro waxaan rajaynayaa wanaag waa inaan ilaahay ka barinaa khayr ilaahay ka barinaa addoomankayga yaa ii baahan i baryayuu dhahayaa rabbigeenna laakiin annaga waan ka gaabsanay taas sidaas ma ahane waan hurdnaayo hurdada aan ka kacno walaalayaal in badan aan ilaahay barino in badan aan ilaahay u sujuudno in badan aan ilaahay u qashuucno ilaahay wuu jecel yahay dadka u qashuuco ilaahay wuu jecel yahay dadka isku duleeyo oo wax kasta u baahan ilaahay weydiisto u sheegto
allahu akbar. ilaahay hanaga dhigo kuwo ilaahooda ka cabsado, ilaahooda u qashuuco, ilaahooda baryo, ilaahooda arrinkooda u sheegto. ilaahay hanaga dhigo. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray, allow nasii adduunka wanaaggiisa, aakhirana wanaag, nagana dhowr cadaabka naarta. allahu akbar. allaahuma najiinaa min cadaaba naar. allahu akbar. walaalayaal aad ayay u xanuun badan tahay cadaabta. ilaahay hanaga najiyo cadaabta, ilaahay hanaga haayo cadaabta aakhiro ha dheelsanina. cadaabta adduunya way dhammaanaysaa. ruuxii adduunka cadabaad arko, dhibaato arko, mashaakil arko, ciqaab arko, masiibo arko, way dhammaanaysaa. laakiin cadaabta aakhiro maaha mid dhammaanaysa, waa mid lagu waaraayo. ruuxii shaqaysto, marka ilaahay nagama dhigo inaan shaqaysano cadaab. ilaahay ayaan ka magan galnay cadaabta jahannamo iyo cadaabalqabri labadaba. walaalayaal, miyaad markaa salaada dukatay aad ka ducaysatay cadaabalqabri iyo cadaabaljahannaba iyo fitnata masiixi dajaal? miyaad ka ducaysata walaalayaal? badankeena waan ka gaabsanaa intaas. saddexda ugu xun oo laga ducaysto waayo walaalayaal. fitnada cadaabalqabriga iyo cadaabta jahannamo iyo fitnada masiixi dajaal waa saddexda ugu adag oo laga ducaysto walaalayaal. ilaahay ayaan ka magan galnay saddexdaas. ilaahay ayaan ka magan galnay fitnada masiixi dajaal iyo fitnada cadaabalqabriga iyo cadaabta jahannamo. ilaahay nagama dhigo kuwo ku ceebooba ilaahay wejigiisa. ilaahay nagama dhigo. maxaa ka xun markaad aakhiro tagtid, ilaahay hortiisa ku istaagtid, sida cashar laguga aqriyo adduunka waxaad ku soo samaysan qalad, xumaan, ceeb, facshir, foolxumo. maxaa ka xun? ilaahu wejigaaga hanagu hor ceebeen maalinta aakhiro. ilaahu wejigaaga hanagu hor ceebeen. walaalayaal, midaas waa inaan ka qiiroonnaa, waa inaan ka murgoonnaa, waa inaan isweydiisanaa adduunyadan maxaa noo yaalo. waa inaan isweydiinaa maanta haddaad dhimatid maxaad ilaahay la hortegaysaa. laakiin ma ahan inaan ku faana siduu hebel uu ku gaar anna aan ku gaari lahaa, siduu hebel ku hela anna aan ku heli lahaa. waa inaad tidhaahdaa hebel ilaaha siiye, ilaaha u barakeeyo, anigana ha isiiyo. walaalayaal, qalbiga wanaagsan waxaa lagu gaaraa guul. qalbiga wanaagsan waxaa lagu helaa faa'iidooyin iyo nicmooyin. ilaahay taqwadiisa hanagu irsaaqo, raxmadiisana hanagu irsaaqo, cabsidiisana hanagu irsaaqo biidni raxmaan. walaalayaal, aan noqono dad ilaahay ka cabsado. ilaahay waan ka cabsanaaye aan saa'idino cabsida ilaahay, aan badino markasta soo xasuusano rabbigeenna inuu ciqaabo shadiid yahay, haddana raxmad badan yahay. wax weliba waa inaan soo xasuusanaa walaalayaal. ilaahay aan ka magan galnaa cadaabtiisa, midda qabriga iyo midda aakhiraba. adduunka dhib kaste, masiibo kastoo nagu dhacdo waa dhammaanaysaa, laakiin midda aakhira ma dhammaanayso ilaa ruux la imaaday camal wanaagsan oo ilaahay ka raali noqdo maahane. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu camalkeena ka dhigo mid wanaagsan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo naxariisto. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raalli naga noqdo. ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka muxsiniinta wanaagsan inuu ilaahay nagu daro. dadku ilaahay jecel yahay, dadku ilaahay doorto inuu ilaahay nagu daro ayaan ka baryaynaa. wadadii muuminiinta, wadadii ambiyada, wadadii nebiyada ay mareen ilaahay subxaana watacaala hana marsiiyo walaalayaal. ilaahay aan ka cabsano, ilaahay aan ka cabsano in badan, ilaahay aan barino in badan. baryada waxay leedahay faa'iido, waxay leedahay guul. sharta iyo khayrka ayay ku kala tusinaysaa. masiibo kasta kuu soo socoto ilaahay dhinaca kaa marinaya. maxaa yeelay markaad maantoo dhan ilaahay gacanta u taagaysa, ama sacaawo dhan ilaahay gacanta u taagaysa, ama salaad kasta aad dukato gadaasheed ilaahay gacanta u taagaysa, ama markaa wax yar aad tabatid ilaahay gacanta u taagtid, miyay kula tawalaalo inuu ilaahay ku khasaarinaayo, ama ilaahay ku daayacayo, ama ilaahay ku cilaynaayo? ma dhacaysa midaas. ilaahay wuxuu jecel yahay dadka markasta ku xiran, dadka markasta baryo, dadka markasta soo xasuusto daqiiqad markaad waxyaabaha malaayacniga ama waxyaabaha qaar aad ku dhex jirtid ama hadallada qaar ku hadlaysid,
waa inaad isqabataa, waa ina ilaahay qalbigaada kusoo dhacaa, xasuustaada kusoo dhacda, isweydiisaa tiraahdaa waxaan aad samaynaysid munaasibkaaga miya, meeshaan aad maraysid munaasibkaaga miya, waxaan aad ku hadlaysid munaasibkaaga miya. isweydii, ilaahay ma raaligelinayaa mase wuu caragelinayaa? allahu akbar. ilaahay subxaana watacaala hana hanuuniyo walaalayaal. hanuunka asaga ayaa iska leh, annaga ma is hanuuni karno, waxba ma iska bedeli karno. ilaahay ayaana bedeli karo, ilaahay ayaana hanuuni karo. laakiin annaga maxaana caawinayo? annaga maxaan ku gaari karnaa guul? annaga maxaan ku hormari karnaa inaan baryada ilaahay badino? markastoo aan ducaysanaynana aan u ducayno walaalaheena ka muslimiinta, markaan ducaysanayna aan u ducayno waddan kasta oo islaan ah oo dhibaato haysato aan u ducaynaa. ducada way fiican tahay, way khayr badan tahay, kama sheekey kara aniga, laakiin waxaan idiin sheegayaa ducada inaad guul ku gaaraysiin, ducada inay leedahay wax weliba u baahan tahay, iyad walba kaa xiran inay ducadu ku furayso. walaalayaal, ilaahay aan ka cabsano, ilaahay subxaana watacaala aan noqono dad ku xiran, ilaahay subxaana watacaala aan noqono dad ka cabsado. allahu akbar. cabsida ilaahay la iskama heli karo, laakiin ilaahay subxaana watacaala ciduu doorto ayuu ku irsaaqaa, ciduu doono ayuu ku irsaaqaa. ruux waliba kuma irsaaqo, laakiin ilaahay cabsidiisa maxaa ku heli kartaa? inaa markasta ilaahay ka cabsatid, markasta daqiiqad cabsida ilaahay kugu abuuranto, ilaahay soo xasuusatid, wax kastoo samaynaysa isxisaabisa, adigna xisaab isku wadid. waa inaad badi baryado, ilaahu igu irsaaq cabsidaada, ilaahu raalli iga noqo, ilaahu ii hagaaji adduunkayga iyo aakhiradayda. allahu akbar. walaalayaal, ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo, ilaahay ramadaanka fadligiisa ha nagu naxariisto, ilaahay ramadaanka fadligiisa dunuubteena ha u mayro, ilaahay ramadaanka fadligiisa ha nagu guulaysiiyo, waddankeena nabad ha nooga dhigo, meel kastoo dunida ka joogno. walaalayaal, ilaahay ha naga dhigo dad isku qalbi fiyo, dad wanaagsan, dad isku tawfiiqa, dad isfahmo. ilaahay ha naga dhigo biidni raxmaan. wabilaahi tawfiiq. waxaan haleelana waxay ka ahaatay ilaahay xaggiisa, waxaan qaldana waxay ka ahaatay naftayda iyo shaydaan. ilaahay subxaana watacaala hana cafiyo, meel kastoo dunida ka joogno ilaahay hana cafiyo.